daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya qodobada aan idinkuga hayan waxaa ka mid noqonaya waa sidee xaaladda magaalada Muqdisho Sadaq Joon oo ka badbaaday isku day dil oo la doonayo in lagu qaarijiyo maamulka Somaliland oo si la yaab leh uga falceliyay muddo kordhinta dowladda federaalka Soomaaliya loo sameeyay dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay canaantii beesha caalamka dhawaan ay u soo jeedisay qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaan idin soo baahin doonaa ee Ramadaan wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya haddii aan ku bilaabo xiisadii xalay ka taagneed qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho una dhaxaysay General Sadaq Joon iyo ciidamo uu soo diray farmaajo ayaa qawowday kadib dadaalo uu sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo markaas isku beel yihiin Sadaq Joon wararka ayaa sheegaya in Qoorqoor uu ku guuleystay baajinta dagaal ka dhici lahaa xaafadda Shirkole ee degmada Hodan oo markaasi dhex mari lahaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa markaasi ka amar qaata taliyii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Sadaq Joon ciidamada dowladda ayaa lagu soo waramayaa in ay dib uga laabteen xaafadda Shirkole oo uu ku sugan yahay General Sadaq Joon oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya siyaasadeeda ka hor yimid markii xalay ay soo ifbaxday in dowladda Soomaaliya ay qorsheysay weerar ka dhan ah General Sadaq Joon waxa u gurmaday rag badan oo hubeysan oo ku heeb ah kadib dadaalo ay baraha bulshada ka sameeyeen xildhibaanada beesha habargidir oo ku baaqay in la garab istaago generaalka waxa sidoo kale lagu soo waramayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay dareentay in cawaaqib xumo uu ka dhalan karo weerarka Sadaq Joon iyo in qoryo laga wada qaato magaalada Muqdisho taasi oo horseeday inaysan weerarkaasi ku degdegin xogta aan helnay ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in Qoorqoor uu ku qanciyay General Sadaq Joon in uu dib ugu laabto gurigiisa oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Cadde oo markii hore uu deganaa si kastaba taliyii hore ee ciidanka booliiska Sadaq Joon ayaa weli ku sugan Shirkole mana cadda goorta uu halkaasi ka tagi doono inkastoo uu aqbalay codsiga madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ma cadda sababta uu Qoorqoor Sadaq Joon ugu qanciyay in uu ku soo laabto agaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaas oo muddooyinkii la soo dhaafay uu deganaa iyo danta arintan ugu jirto dowladda federaalka Soomaaliya waxaana dadka qaar ay ku micneeyeen shirqool lala doonayo in markaasi uu dabinka ugu soo dhaco dowladda federaalka Soomaaliya oo dowladda ay dadaal badan ku bixinayso sidii ay markaasi taliyahaasi xabsi u dhigi lahayd ama ay u qaarijin lahayd ma cadda halka ay xaaladda ku dambeyn doonto iyo haddii General Sadaq Joon uu ku laaban doono gurigiisa oo ku yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde wararka ku saabsan xiisadda ka dhex taagan magaalada Muqdisho ayaan ku guda jirnay xog ay heshay BahdaTv ayaa sheegaya in taliyii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir General Sadaq Umar Xasan Sadaq Joon uu xarun markaasi ka dhigtay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir Sadaq Joon oo wata ciidamo daacad u ah iyo gaadiid dagaal ayaa deegaansaday xaafadda Shirkole oo markaasi deegaan ahaan ay u badan yihiin reerkiisa Shirkole ayaa inta badan waxaa degan beeshiisa dad ka soo jeeda sida markaasi la sheegay sidoo kale ciidamo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa lagu arkayaa qaybo badan oo ka tirsan wadada Sodonka gaar ahaan isgoosyada Balaxi iyo Bar Ubax waxa sidoo kale soo baxaya cabsi xoog leh oo laga qabo in madaxda dowladda federaalka amarkan weerarka ka dhanka Sadaq Joon iyo ciidamo uu wato markaasi in saraakiishaasi la faro haddii ay dowladda ku dhiirato in ay weerarto Sadaq Joon waxay dad badan qabaan in markaasi uu bilaaban karo qalalaase iyo sidoo kale in dagaal uu ka dhaco magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee farmaajo ayaa xalay darajadii sargaalnimo iyo xuquuq waxa uu dhawaan ka xayuubiyay General Sadaq Joon sareeyo guud
Sadaq Cumar Xasan ayaa lagu tirin jiray saraakiisha ugu dhow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalin ka hor magaalada Muqdisho ka sheegay in uu is-horistaag ku sameeyo kulanka xildhibaanada waqtigooda dhamaaday ee golaha shacabka muddada ay ugu kordhiyeen hay-adaha dowladda federaalka. hase yeeshee daqiiqado gudahood markii uu ka soo yeeray hadalkaas ayaa xilkii laga qaaday waxaana qabsoomay kulankii markaasi ugu horeeyay ee baarlamaanka Soomaaliya oo 2 sano dowladda markaasi waqti loogu kordhiyay. dhinaca kale shir u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxa uu ka dhacay madaxtooyada Villa Soomaaliya. shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xalay magaalada caasimadda Muqdisho laga dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh iyo cabsi dagaal waxaana arintaasi Qorqor uu kala hadlay ra'iisul wasaare Roble. Sadaq Cumar Xasan ayaa xarun deegaan waxa uu ka dhigtay qaybo ka tirsan xaafadda shir kale waxaana uu wataa ciidamo daacad u ah iyo sidoo kale gaadiid dagaal sidoo kale ciidamo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ayaa lagu arkayaa isgoysyo muhiim ah oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. haddii aan intaas kaga soo gudubno xiisadda dagaal ee markaasi u dhaxaysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo taabacsan taliyii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir Sadaq John markana Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamo oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu saameynta badan Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda uu dalka ku jiro kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysatay muddo kordhin 2 sano ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in dalka uu haatan galay wiji hogaamiye kooxeednimo waxa uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in uu jabinayo sharciga iyo xeerarka u yaala dowladnimada Soomaaliya. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dowladda Eritrea sidoo kale ku eedeeyay in ay ka shaqeynayso qalalaasa siyaasadeed oo dalka markaasi uu looga halagalo. sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si cad u sheegay in ay dhamaatay rajadii laga lahaa in doorasho ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sidaas darteedna uu Muqdisho ka soo fuqsaday boorarkii musharaxnimadiisa kadib markii uu ogaaday inaysan muuqan ifafaalo muujinayo in doorasho dalka ay ka dhacdo. waxa uu dhaliil u jeediyey maamul goboleedyada taageeray sharcigii ay meel mariyaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kaas oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu isna saxiixay. beesha caalamka ayaa daleeceysay go'aankii ay golaha shacabka Soomaaliya muddada 2 sano ugu kordhiyeen hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. midowga Yurub, Mareykanka iyo UK ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta go'aankan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu dhawaan saxiixay sharciga gaarka ah ee muddada lagu kordhiyay hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale waxa la weydiiyay lacagta xisbigiisa shacabka Soomaaliyeed ay u arooriyaan iyo halka ay ku dambeysay isagoo ku jawaabay in lacagtaasi oo haatan laga dareemayo in lagu sameeyo musuqmaasuq uu ku soo koobay in ay ku baxday boorarka magaalada ugu dhagsan ee ololihiisa doorashada iyo sidoo kale in mushaaraad looga dhigay dhalinyarada xafiiskiisa ololaha ka shaqeysa taasi oo haatan u muuqata in lacagta ee bulshada uu ka helay ee uu ku dalbanayo taageerada in lagu garab istaago musharaxnimadiisa ay haatan markaasi musuqmaasuqeen shakhsiyaad gaar ah isla markaana uusan jawaab cad ah ka heenin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii uu ku soo koobay oo kaliya in lacagtaasi ay ku baxday ololihii doorashada boorarka lacagihii lagu sameeyay iyo sidoo kale mushaaraad in loo siiyay dhalinyarada ololaha xafiiskiisa ka shaqeysa. lacagtaas oo ka badan inta hadda uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. ugu dambeynna xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay qoraal rasmi ah waxa ay ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo ka sii dartay tan iyo markii uu soo ifbaxay qoraalkii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya muddo kordhinta. qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland waxaa walaac looga muujiyay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo ay markaasi ugu yeertay dalka dariska ah gaar ahaan ismarwaaga ka dhex taagan madaxda waqtigooda dhamaaday iyo musharaxiinta mucaaradka. sidoo kale waxaa shacabka magaalada Muqdisho ay ugu baaqeen mas'uuliyiinta Somaliland in ay adkeeyaan amniga iyo xasiloonida caasimadda.
qoraalka Somaliland ayaa waxaa kaloo lagu soo dhaweeyay go'aankii golaha qaramada midoobe uu ka qaatay muddo kordhinta cunaqabataynta hubka iyo sidoo kale in cadaadis xooggan la saaro madaxda dowladda Soomaaliya oo arrimahaasi ku kacay. Somaliland oo iyadu ku dooda inay tahay dal ka madax bannaan jamhuuriyadda ayaa waxa ay markaasi isku sifeysay inay hormuud u tahay dimuqraadiyadda, waxayna qoraalka ku sheegtay in qor isku dhiibka kursiga uu si nabad ah uga dhaco dalka intiisa kale. qoraalkan ayaa imaanaya xilli ay ka sii darayso xaaladda siyaasadeed ee dalka tan iyo markii golaha shacabka ay soo saareen qaraar muddo kordhin loogu sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan waa naginta wararkii iyo xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen BahdaTv. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay.